barnaamijka dhalinyarada maanta. halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal waa maalin talaada 6 bisha November sanadka 2018 idaacada duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa wadajir idinku daadiinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Jaamac Buula Jaamac. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadeena duhurnimo waxaa ka mid ah dhalinyarada oo la sheegay inay yihiin kuwa ugu badan ee uu ku dhaco xanuunka dhimirka. Cilmi-baarista duka sheegaysa in cudurrada dhimirka badankooda ay bilaabmaan xilliyada daa'irta ay dadku ay soo baaluqayaan ilaa ay gaariyaan sodomiyada waana xilliyada ay u nugul yihiin qaar badan oo ka mid ah ku dhaca cudurrada dhimirka. waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan dhalinyaro kalluumaysata oo aqoon kororsi la xiriira tayada kalluunka lagu siiyey magaalada Boosaaso. heesaha aan idin haynana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha adduunka iyo warkii caalamka ayaad maqlaysaan dhegeystayaal. shacabka Mareykanka ayaa saaka u dareeraya doorasho aad loogu kala qaybsan yahay oo lagu soo dooranayo labada gole ee uu ka kooban yahay Koongareeska Mareykanka. doorashadan oo sidoo kale loo arko afti ku aadan sida ay shacabka Mareykanka u arkaan madaxweyne Donald Trump ayaa go'aan ka gaari doonta jihada ay siyaasadda Mareykanka u dhaqaaqi doonto labada sano ee soo socota ee uu talada hayo madaxweynaha. labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga ayaa aad ugu tartami doona dhammaan kuraasta aqalka wakiilada iyo 35 kursi oo ka mid ah 100 kursi ee uu ka kooban yahay golaha Senadka. shacabka ayaa sidoo kale soo dooran doona 36 ka mid ah 50 gudoomiye ee maamula 50 gobol ee uu Mareykanka ka kooban yahay. ra'yi ururin dadweyne ayaa muujinaysa in xisbiga mucaaradka ah ee Dimuqraadiga uu kaga horeeyo xisbiga Jamhuuriga aqlabiyadda aqalka wakiilada. si ay u noqdaan aqlabiyadda aqalka wakiilada ayaa waxay dimuqraadiyiintu u baahnaan doonaan 23 kursi. Jamhuuriga ayaa ku xisaabtamaya ololihii uu madaxweyne Trump u sameeyay ee dhinaca soo galootiga oo ay u suuragelin doonto in ay sii maamulaan aqlabiyadda labada aqal ee Koongareeska. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa maanta shaaciyay in dalkiisu uu hayo cadeymo dheeri ah oo muujinaya dalkii wariyaha Sacuudiga ahaa ee Jamal Khashoggi waana ay soo bandhigi doonaan cadeymahaas ayuu yidhi marka la soo gabagabeeyo baaritaanka dilkan ku saabsan ee socda. wasiir Mevlut Cavusoglu ayaa wariyayaasha kula hadlay dalka Japan oo safar uu ku joogo ayaa intaas waxa uu ku daray in Sacuudiga iyo wadamada kale ee daneynaya arrintan la tusay cadeynta. Jamal Khashoggi oo ahaa wariyo qoraalo dhaliil ah ka qori jiray dowladda Sacuudiga ayaa horaantii bisha Oktoobar lagu dilay qunsuliyadda Sacuudiga ay ku leedahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. warkaas dhageystayaal wuxuu idinkaga imaanayay VOA. dhalinyarada ayaa la sheegay inay yihiin kuwa ugu badan ee uu ku dhaco cudurka maskaxda. wariyaheena magaalada Boorama Hashim Sheekh Umar Good ayaa dhibaatooyinka xanuunada dhimirka ee dhalinyarada ka wareystay Dr. Jibriil Xandulle oo ah dhakhtar aqoon u leh xanuunada dhimirka. cilmi-baarista duka sheegaysa in cudurrada dhimirka badankooda ay bilaabmaan xilliyada daa'irta ay dadku ay soo baaluqayaan ilaa ay gaariyaan sodomiyada waana xilliyada ay u nugul yihiin qaar badan oo ka mid ah ku dhaca cudurrada dhimirka. taasoo qodob ta kale waa xilli ay soo ifbaxaan cudurrada dhimirku. waxa kale oo iyadna muhiim ah in haddii fursadda la isticmaalo in dhalinyarta la daweeyo dad badan la badbaadinayo. midda kale xilliga dhalinyarta waa xilli ay u nugul yihiin inay tijaabiyaan wax kasta
sida mukhaadaraadka sida inay waxyaalo khatar ah loo jeediyaan oo u nugleen kara inuu ku dhaco cudurrada dhimirka marka waa jiil u nugul in cudurrada noocaas oo kale ay ku dhacaan marka saas ayaa loo beegsaday iyadoo la arkay in dhalinyaradu ay aad u asiibayo adduunka oo dhan inta badan waxaad tilmaantay in xanuunada ay u nugul yihiin da'yarta dhalinyarada maxaa u sababa in ay u nuglaadaan xanuunada waxaa ayaalo badan baa ugu sababa laakiinse waxaa jira qodobo waaweyn oo xilliyada dhalinyarnimada waajaha nolosha bini'aadamka waxayna ka mid yihiin waxbarashada shaqada waxayna ka mid yihiin nuglaashaha inay bartaan mukhaadaraadka dhulka soomaalida waxa khatar jaadka sigaarka waxyaala mukhaadaraadada kale iyagoo waxaasoo dhan ay u nugul yihiin ayaa u sababa waxyaala ugu waaweyn keenan qaarkood hiddo ahaana waxaga faamiliyadooda ayay u leeyihiin laakiinse waxa ugu weyn waxa weeye noloshooda isbedelka ay ka imanayaan min caruurnimada ay u gudbayaan nolosha da'da family inay yeeshaan inay shaqaystaan inay waxbartaan waxyaalahaasay dhibaato kala kulmi karaan iyo nolosha qolba waddankay ku nool yihiin doctor waxaad moodaa xanuunadani inay ka awood weyihiin qoysaska marka loo eego dadka xanuunadan ay ku dhacaan oo aan qoyskoodu daryeeli karin laakiinse ay u baahan yihiin daryeel ka ballaaran qoyskooda dhinaca awoodda taas oo kale sida wax looga qaban karaa baad is leedahay xashimow qodobkaa taabtay oo qodobka ugu muhiimsan ee la xidhiidha in la daweeyo dadka cudurka dhimirka buka waxaa jirta oo hubaala in dadka uu ku dhaco cudurka noocan oo kala ay u badan yihiin badanka dad dabaqada hoosa ama dabaqada dhexa oo awood u lahayn saadadu hadda u dhigtay inay iska bixiyaan takaaliifta la xidhiidha dawada iyo xanaaneynta midda kale taa waxaa kasii daran in familigii qofka ka bukay ay ku saboolowdaan ay lacagtooda kaga dhammaatoba qofka inay daweeyaan oo qofkii faqiirnimoba ay familiga ka qaadaan markaasaa kaliya loo daweyn kara waxa waa in dowladdu ay ka bixisaa dadka kharashka la xidhiidha daaweynta walaa bulshadaan bixin karin caymis caafimaad unba dadka qaban kara haddii taada caymis caafimaad jirin macquul la tahay inay wadan soo koraya sida Somaliland dhulka Soomaaliya degtoo kale waa adkaanaysa inay xitaa dowladda lafteeda ay bixiso ay dowladdu kharash ma haystaan iyaga laftooda badan oo ay ku bixiyaan caafimaadka bulshada caafimaadkiina waxaa wada tartamaya cudurro badan kuwii dhimarka kuwii hooyadii dhallaanka kuwii infekshanada saas oo kale marka sidaa keliya lagu bixin karo waa caymis haddii caymis jirin sidaan aan nahay unbaan badanka ahaan doona oo wax isbedela oo weyn oo arkayna ma jirto ama qofka qaraabadiisa ama tolkii ama qof u dhow oo caawiyo mooyaane dad badan marka xaqiiqada laga hadlo ma qaraabo doctor Jibriil waxaa jira goobo dadka xanuunadan ay ku dhacaan la geeyo goobaha ma joogaan dhakhaatiir aqoon u leh xanuunadan iyo cudurradan dhimirka ee ku dhaca maskaxda qofkii dhalinyaraha ee xanuunkan ku dhacay waxaa la geynayaa goobaha la yiraahdo cilaajka oo cid aan aqoon u lahayn ay joogto halka raashin lagu siiyo qofkii dhaqaale ku bixiyo goobaha noocaas ah mas'uuliyadahay way ku bogsan karaan dhalinyaradu ma aaminsani waayo waxa weeye cudur dhimirku waa cudur kamid ah cudurrada jirka ku dhaco haddii la yiraahdo okay wax ku dhacay macaan lagiise inta ku soo qabanay ilaashku waxa la soo waxa weeye ilaashku uu ka daweynaya macaanka ama dhigkar ama faalid ama jin wareen oo saas kale marka cudurka dhimirku wuxuu baahan yahay qof professional oo garanaya waxa uu daweynayo nuxurku wasaas laakiin waxaad moodaa Somaliland oo kale oo anagu intaan garanaya inay arintu iska tahay business marka sheekhu iska furan karo meel dadku ku xarayo mesela wax ka soo qaata qofka bukaanka dhimirka bishii wuxuu baahiyay dawo waxa daweyn karta in ku filan 20 ilaa 40 dollar marka eegto laakiin markuu ilaash lagu bixiyo $150 waa kharash ka badan laba jibaar iyadoo uu tagiyo qof aan khibrad caafimaad lahayn taas kaliya lagu saxi karaa oo wasaaradda caafimaad oo yeelata health policy siyaasad cad deedna wadda kasta waxay leeyihiin matalan law oo ah heerka cudurka dhimirka marka ilaa ay jirto siyaasad dawladeed oo cad laba controlka waa waxa way badanayaan maadaama baahida badato way badanayaan midda kale dhakhaatiirta daweynta Somaliland oo kale ka badan 5 ilaa 10 kaas waxa uu ahaa Dr. Jibriil Xandulle oo ah dhakhtar aqoon u leh xanuunada dhimirka waxa uu magaalada Boorama ugu warramay wariyaheena Haashim Sheekh Cumar Good
duhur wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaana waa barnaamijka dhalinyarada maanta oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga v o a ee Washington. dhalinyaro badan ayaa ka xogsada badda iyo iyagoo nolol maalmeedkooda kala soo baxa hase yeeshee waxaa la tilmaamaa inay kooban tahay heerka aqoonta ay u leeyihiin soo jilaabashada kalluunka iyo weliba agabka loogu talagalay in lagu adeegto. magaalada Boosaaso waxaa lagu qabtay tababar lagu siinayay dhalinyarada kalluumaysatada kuwaasi oo la barayay ilaalinta tayada kalluunka sida nadaafadda iyo weliba hanaanka looga ilaaliyo barafka. wariyaha VOA-da Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Boosaaso. tababarkan oo ay ka faa'iideysanayeen 35 qof oo ka kala socday wasaaradda kalluumaysiga Puntland, shirkadaha kalluumaysiga ee gaarka loo leeyahay iyo weliba iskaashatada kalluumaysatada Boosaaso waxa uu soconayay muddo 2 cisho ah. tababarkan waxaa diiradda lagu saarayay sida loo ilaalin karo tayada kalluunka. dhalinyarada waxaa lagu tababarayay sida ugu habboon ee loo heli karo in la helo kalluun tayadiisu aan isbedelin oo cunistiisu ay habboon tahay, iyo weliba sidoo kale ilaalinta nadaafadda kalluunka xilliyada la soo jilaabayo. sarkaal ka socday hay'adda SGS oo ka shaqeeya hubinta badeecadaha caalamka ayaa ka hadlay tababarkani iyo waxyaabaha dhalinyarada lagu tababaray. tababarkani waxa uu noo socday dhowrkii maalmood ee aynu soo dhaafnay. maanta waxaynu halkan u joognaa inaynu muujino sidii aad arrimahan u daryeeli lahaydeen. waa arrimo aad u sahlan oo aynu u baahannahay inaynu qabanno. kasoo qaybgalayaasha halkan joogana waxaan filayaa inay dhugteen. qaar ka mid ah kalluumaysatadii ka faa'iideysanaya barnaamijkan ayaan weydiiyey muhiimadda uu leeyahay iyo weliba waxay ka faa'iideen tababarkani. waxaan kaga faa'iideysanay quality controlka kalluunka from handlingka ilaa halka marka lasoo saarayo ilaa iyo export halka ugu dambeysa kalluunka tayadiisa, caafimaadkiisa, tayadiisa ku fiicnaanayso, freshness-kiisa. waa Maxamed Ismaaciil Saciid. saan ula jaanqaadi lahayn caalamka ula jaanqaadi lahayn kalluunka marka ugu horeeya aan soo qabanayno nadaafadiisa, xanaanadiisa, barafkiisa, hayntiisa, dhoofintiisa. markaan kalluun xanaano leh oo baraf leh oo miisaaniyad leh aan soo bandhigno dalalka adduunka waa naga qayb qaadanayaan. magacaygu waa Maxamed Muuse. haasabna lagu siinayay habka loo ilaaliyo nadaafadda kalluunka ama mataqaanaayo kale noona sharaxaysay kalluunkeena kaliyaata waxaa nala haray ee tahay waa jeermis. runtiina aniga ahaan kambaniga ka socday waxaa fahmay awal kalluunkeena waxa la sheegi jiray bire inay wax ku jirjiraan, laakiin barnaamijkan waxay nagu bareen kalluunkeena ma taqaanayo waxyaabo kale oo chemical aan ku jiray aysan jirin, laakiin kaliya jeermiskaas iyo waxyaabahan ma taqaan dheertiga iyo in barafkiisa aan lagu dadaalin si loo barafayn lahaa ma taqaan lagu dadaalin. casharkaas ay runtii bartay barnaamijkan haasab. marka runtii dhiirigelin bayna siisay. anigu waa barnaamijka labaad ee qabato aan ka qayb galay. magacayga waa Maxamed Muuse Saalax. aad iyo aad ayaan ugu faa'iideysanay seminaarkan inoo qabatay hay'adda. aad iyo aad ayaan dadkayga waxaan ugu baraarujinayaa in ay ka soo qayb galaanin shirkadaha nala midka ah oo ka shaqeyn ka bursooskooda uu yahay kalluunka. taasna aad iyo aad ayaan uga faa'iideysanay. xeebta magaalada Boosaaso ayaa inta badan waxay kalluumaysatadu keenaan kalluun ay xilli hore soo qabteen oo markaasi tayadiisa isbedelay. dhalinyarada waxaa lagu tababaray in badda ay u qaataan baraf si ay kalluunka ay soo qabtaan dusha uga saaraan, markaas oo aan isbedelin tayadiisa si dadweynaha looga iibiyo kalluun markaasi fresh ah. Yuusuf Maxamuud VOA, Boosaaso. aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Yuusuf. dhegeystayaal halka aad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. haddana aan jaleecno dhankii heesaha. waa rugta nolosha oo ay noogu luuqeynayaan fanaaniinta da'da yar Cawaale Aadan iyo Hodan Cabdiraxmaan. rugta noloshu waa guure, rugta noloshu waa guure raxmataale. hodamadku hayga roodine raxmataale.
وحجيك القعفيو ريحان وكوني نفط الراحة ليلاي مجدان سبيا وبحراكم ضهيري الرامات يدوزوها وتشن على كلامها روح أبوكم هرنجاي إلى الغوري عم بكور يا غيري جعيتيو ريسي وبالي وحجيك القعفيو ريحان وكوني نفط الراحة ليلاي مجدان سبيا وبحراكم ضهيري الرامات يدوزوها وتشن على كلامها روح أبوكم هرنجاي إلى الغوري عم بكور يا ضايعها وهوني تلقوا ركبي ما كيد راعة الله إلهي تدربي أبي مديني رجع ورجع كنت دورته ضايعها وهوني تلقوا ركبي ما كيد راعة ربط نرشو وقوري رحمة علي يديني ويرمود الرب لحالي ورمتكو حيقرورين رحمة علي صر عليهم كامرين الرب لويكن ربط نرشو وقوري رب لحالي daayaha u roonaytii lagu rakibayay iyo codka macaan ee cawaale aadan iyo hodan cabdiraxmaan dhegeystayaal waxaad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan soo gaarnay xilligaan hawada idiin soo marin lahayn qodobadii ciyaaraha nuur xasan nuur buqaari ayaa inoola diyaara
mahadsanid jaamac haddii aan ku horeyno caawa waxaa dhici doona ciyaaro ka tirsan wareega koowaad ee koobka kooxaha horyaalada Yurub UEFA Champions League gruupka koowaad kooxda Monaco ayaa waxa ay la ciyaari doontaan naadiga Club Brugge kooxda Borussia Dortmund oo aanan marna dhinaceeda la dhigin tan iyo intii uu bilowday tartankan waxa ay ku marti u noqon doontaa naadiga Atletico de Madrid waqtii hore oo ka dhacday dalka Jarmalka iyo guriga Dortmund waxaa 4 gool ku soo badisay kooxda Atletico de Madrid natiijadaas oo ka yaabsatay taageerayaasha Atletico la arki doonee in Atletico de Madrid ay iska migi doonto wiildaradii ka soo gaartay dhinacaas iyo kooxda Borussia Dortmund waxaana gruupkan horkacaysa kooxda Borussia Dortmund waxa ay ku hogaaminaysaa 9 dhibcood waxaa ku xigta Atletico de Madrid oo leh 6 dhibic Monaco iyo Club Brugge ayaa ugu hooseeya oo isla leh min 1 dhibic ciyaarta isha lagu hayo ayaa waxa ay tahay tan caawa dhexmari doonta kooxaha Inter Milan iyo Barcelona waqtii hore oo ka dhacday guriga Barcelona waxaa 2 gool ku badisay kooxda Barcelona iyadoo weli uu ka maqnaa ciyaaryahan Lionel Messi oo dhaawac ahaa laakiin Messi caawa waxaa la filayaa in uu u soo safto kooxda Barcelona ciyaarta ka dhici doonta magaalada Milano Tottenham Hotspur waxay gurigeeda ku martigelin doontaa kooxda PSV Eindhoven dhinaca kala horeynta Barcelona ayaa groupkan B ku hogaaminaysa 9 dhibcood waxa ku xigta Inter oo leh 6 dhibic Tottenham iyo PSV waxa ay wadaagaan min 1 dhibic kooxda C waxa ciyaar xiiso leh ay dhexmari doontaa kooxaha Napoli iyo Paris Saint-Germain isargii hore oo ka dhacay magaalada Paris waxay ciyaartaasi ku soo dhamaatay barbardhac 2 gool iyo 2 gool ah iyadoo waliba kooxda PSG ay ku sigatay in laga badiyo oo daqiiqadii ugu dambeeyay ay ka daba tagtay kooxda Napoli ciyaartaas oo ahayd mid kamid ah kuwii ugu wanaagsanaa ee toddobaadkaas kooxda Liverpoolna waxa ay u safraysaa oo ay la ciyaari doontaa kooxda dalka Serbia ka dhisan Red Star ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara kooxda Liverpool Shaqiri ayaa laga tagay sababo la xiriira dhinaca amniga ciyaaryahankan maadaama uu ka soo jeedo qowmiyadda Albaniyiinta dalkaasi Kosovo isla markaana laga yaabay in ay saameyso dagaalkii dhexmaray Serbia iyo Albania iyo Kosovo sagaashamaadkii kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa groupkan ka horkacaysa 6 dhibic waxa ku xigta Napoli oo leh 5 Paris Saint-Germain kaalinta saddexaad ay ku jirtaa waxaana ay leedahay 4 dhibic kooxda Red Star ayaa ugu hooseysa oo leh 1 dhibic dhinaca kooxda D waxa ciyaar xiiso leh ay dhexmari doontaa kooxaha Schalke iyo Galatasaray Lokomotiv Moscow waxay la ciyaari doontaa kooxda FC Porto waxaana dhinaca kala horeynta ku horeysa kooxda Porto oo leh 7 dhibcood Schalke ayaa ku xigta oo leh 5 dhibic Galatasaray waxay ku jirtaa kaalinta saddexaad waxaana ay leedahay 4 dhibic Lokomotiv Moscow ayaa ugu hooseysa oo aanan lahayn wax dhibco ah habeen dambe ayaa sidoo kale ciyaaro ka tirsan tartankan ay dhici doonaan kooxda Bayern Munich ayaa la ciyaari doonta AEK Athens Benfica waxay la dheeli doontaa kooxda Ajax dhinaca kala horeynta groupkan E Ajax iyo Bayern Munich ayaa isla hogaaminaya oo leh 7 dhibcood Benfica ayaa ku xigta oo leh 3 dhibic AEK Athens waxba ma lahan Manchester City ayaa la ciyaari doonta Shakhtar Donetsk halka Lyon ay fooda dari doonto kooxda Hoffenheim waxaana dhammaan kooxahan ka wada tirsan yihiin qaybta F kala horeynta Manchester City ayaa 6 dhibic ka horkacaysa Lyon ayaa ku xigta oo leh 5 dhibcood Hoffenheim ayaa iyo Shakhtar Donetsk waxay isla leeyihiin min 2 dhibic kooxda horyaalka Champions League Europe difaacanaysa ee Real Madrid ayaa habeen dambe la ciyaari doonta naadiga Victoria Plzen Roma waxa ay garka gelin doontaa CSKA Moscow groupka G oo ay ka wada tirsan yihiin waxaa min 6 dhibic ku wada horkacaya Real Madrid iyo Roma kooxda CSKA Moscow waxa ay leedahay 4 dhibic Victoria Plzen ayaa ugu hooseysa oo leh 1 dhibic wali koobka Europe tartanka Champions League ayaan ku jirnay groupka ugu dambeeya ee H ayaa isna caawa ciyaarihiisu ay dhici doonaan kooxda kubadda cagta Juventus ayaa waxa ay gurigeeda kula ciyaari doontaa magaalada Turin naadiga Manchester United oo isargii hore ay kaga soo badisay magaalada Manchester iyo garoonka Old Trafford ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa wajihi doona kooxdiisii hore ee Manchester United toddobaadkii hore ama isargii hore wax gool ah kama uusan dhalin laakiin su'aasha taagan ayaa ah guriga Juventus kooxdiisii hore gool ma kaga dhalin doona
kooxda Valencia waxay dalkaas Spain iyo magaalada Valencia ku martigelin doontaa kooxda Young Boys. dhinaca kale horeynta waxa ugu sareysay Juventus oo leh 9 dhibic. Manchester United ayaa ku xigta oo leh 4 dhibcood. Valencia 2 dhibic ay leedahay. Young Boys ayaa ugu hooseysa oo leh 1 dhibic. dhegeystayaal wararkii ciyaarahana waa naga intaa. waa tahay xubintii ciyaaraha nuur xasan nuur buqaari nuurow galabta ayay anaga dabcan noo tahay duhurnimada halka fiidka Yurub iyo Afrika ay ciyaaruhu dhacayaan. adiga yaad daawan doontaa baad leedahay maanta ood fiirinaysa? jaamaco waxaan daawan doonaa ciyaarta Napoli iyo Paris Saint-Germain sababtoo ah lugtii hore ayaan fiirsaday waxaana ahayd ciyaar aad iyo aad xamaasad u lahayd oo aad u xiiso badan. marka waxaan isleeyahay toddobaadkan waxa ama caawa ama sidaas sheegtay xilligeenan Mareykanka galabnimadii inay noo noqon doonto ciyaar aad u xiiso badan. ciyaarta kalena maaragtay isha lagu hayn doono waa tan Barcelona iyo Inter. marka waxay ila tahay taasna inay tahay ciyaar aad u xiiso badan laakiin tan PSG iyo Napoli ayaan ku heystaa. waayahay aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaal. aan jaleecno dhankii heesaha waa Oogadeyda iyo fanaanka Maxamed Lafole. heestaasi dabacsan ee Oogadeyda oo idil
uumi baa ka baxay iyo codka maxamed xasan xuseen lafoole ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynay idaacaddeenii duhurnimo waxaa idinla socodsiiyey jaamac buule jaamac falasley anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulan dambe dhegeystayaal sidaa iyo nabadgelyo